السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسر هذا مركله إيوه FPL Somali وأنا جوا داير عبد العالي أو إذا لسعودين يا حبين كله وأنا هذا دونه فانتسي بريمير ليج لابد كل لواتني كل لابد كل لواتني لو وحينوسو قبل أسبوع عيارات كوبات حل عيارات كعصب أو كل ما حيسب بدنا يدعين دبعوا بدنا لقاطي أو العلس كي دبعها ما ملياش أي كينين أي نقطي لحدا يسقال دبعوا ما ملها أوبر واحد أو كينين بقول يكون تدبعات ciyaaryahankii ugu badnaa ee kabtanka la saartayna waxa uu ahaa Mohamed Salah. ciyaaryahanka kabtanka xigeenka la saartay ee ugu badnaana wuxuu ahaa Bruno Fernandes, labadaas nin oo dhibco fiican keenay. ciyaaryahankii ugu badnaa ee la doortay ama lagu soo darsaday maamulayaasha ay soo xusheen waxa uu ahaa Luke Shaw. jibaaradii ugu badnaa ee la ciyaarayna waxay ahaayeen jibaarka lagu magacaabo triple captainka oo kabtanka dhibcihiisa lagu saddex jibaarayo oo waxaa triple captain ciyaartay 225,749 qof halka bench boost oo ah dhibcaha benjiga in lagu daro ee ciyaareen maamulayaal gaaraya 145,658 maamule. intaasi waa guud ahaan yani isbuuc ciyaareedka sida uu ekaa bal aan fiirino marka ciyaaryahanada sida gaarka ah dhibcaha ugu badan keenay oo la dhihi karo dream teamka ama Kings of the Game Week walba macnaha dhibcaha ugu badan kuwa keenay. ciyaaryahanka ugu horeeya ugu dhibcaha badnaa isbuucani waxa uu ahaa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Manchester United ee lagu magacaabo Bruno Fernandes oo keenay 20 dhibcood. Bruno Fernandes waxa uu qayb ka ahaa kulankii Manchester United ay 5-1 kaga badisay kooxda Leeds oo ciyaar xiiso badan oo Manchester United ku raaxaysatay uu ka dhaliyay 3 lay. marka Bruno Fernandes waxa uu ahaa ciyaaryahankii ugu dhibcaha badnaa toddobaadkan waxa uu noqonayaa ciyaaryahanka ugu horeeya ee ku guuleysta King of the Game Week oo yani Game Week ugu horeeyay ama ciyaaradka koowaad ku guuleystay. dhinaca goolhayaha oo isbuuc ciyaareedkan ugu gool dhibcaha badnaa waxa uu ahaa Hugo Lloris oo ciyaara kooxda Tottenham. kooxda Tottenham waxa ay 1-0 kaga badisay kooxda Manchester City ciyaar xiiso badneed oo iyadana ka dhacday garoonka Tottenham Stadium oo ciyaaryahan Son uu hal gool u dhaliyay sidaasna ay waxay ahayd Manchester City guul darro kala kulantay Tottenham. Hugo Lloris marka shabaqiisa ayuu ilaashaday oo ilaa iyo badbaadin 4 ah ayuu sameeyay oo dhibco meeshaas ka helay sidoo kale dhibco dheeraadka ah saddexdaan uu helay oo sidaas ayaa wuxuu ku helay dhibco gaaraya 10 dhibcood. dhanka daafaca oo waxa ugu horeeya ciyaaryahanka lagu magacaabo Marcos Alonso oo ciyaara kooxda Chelsea oo 3-0 kaga badisay kooxda Crystal Palace. Marcos Alonso waxa uu sameeyay gool ayuu dhaliyay sidoo kale shabaqi ayuu ilaashaday gool marka uu difaac dhaliyo waxa uu helay 6 dhibcood. shabaq ilaashashada dhibcahana waxa uu ku helay 4 dhibcood. dhibcii dheeraadka ahna 3 ayuu ka helay oo sidaas ayaa waxa uu ku helay 15 dhibcood. ciyaaryahanka daayarka kooxda Chelsea ee lagu magacaabo Chalobah oo kulankiisii ugu horeysay Premier League ku soo bilowday ayaa waxa uu keenay asna 14 dhibcood. Chalobah waxa uu dhaliyay gool sidoo kale caawin ayuu sameeyay shabaqiisa ayuu ilaashaday sidaasna waxa uu ku helay dhibcii dheeraadka ay ku mutaystay ee gaarayay labada. marka 14 dhibcood ayuu keenay Chalobah. ciyaaraanka kale waa Matheus Ricardo Barbosa Pereira oo u ciyaara kooxda Leicester City oo 1-0 kaga badisay kooxda Wolves. Matheus Pereira waxa uu sameeyay caawin oo ku helay 3 dhibcood sidoo kale shabaqiisa ayuu ilaashaday waa difaac waxa uu ku helay 4 dhibcood. dhibcii dheeraadka ahna waxa uu helay 3 dhibcood sidaas ayuu ku keenay 12 dhibcood. ciyaaraanka kale ee daafaca ah ee asna dhibcaha fiican keenay waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Ethan Pinnock oo u ciyaara kooxda Brentford oo 2-0 kaga badisay kooxda Arsenal oo gool darro xanuun badan halkaas ku gaarsay kooxda Arsenal oo toddobaadkan rajaynaysa inay meeshaas dhibco ka qaadato ayaa waxa uu sameeyay difaacaasi caawin ayuu sameeyay oo 3 dhibcood ah sidoo kale shabaqiisa ayuu ilaashaday 2 dhibcood oo dheeraad ahna uu helay 12 dhibcood ayuu sidaas ku helay. Bruno Fernandes oo aan sheegnay asna inuu yahay ciyaaryahanka ugu dhibcaha badan toddobaadkan ayaa keenay 20 dhibcood oo dhinaca khadka dhexe waa ciyaaryahanka ugu badan aan sheegnay saddexleed u dhaliyay waxa uu ku helay 15 dhibcood maadaama ciyaaryahanka khadka dhexe goolka uu dhaliyay uu ku helay 5 dhibcood. Bruno Fernandes waxa uu dhaliyay 3 kamid ah goolashii 5 ah ee ku badisay kooxda Manchester United ee kaga badisay Leeds. bonuska ama dhibcaha dheeraadka ahna wuxuu helay 3 dhibcood.
sidaasna waxa uu ku helay dhibco gaaraya 20 dhibcood. ciyaaryahan Mohamed Salah oo ahaa ninka ugu badnaa ee kabtanka la saartay ayaa helay 17 dhibcood. Mohamed Salah waxa uu sameeyay 2 caawin sidoo kale gool ayuu dhaliyay. dhibcii dheeraadka ahaana waxa uu helay 3 dhibcood. sidoo kale shabaq ilaashada oo maadaama khad dhexe uu ka ciyaaro wuxuu ku helay 1 dhibcood. dhibcihiisana waxa ay gaarayeen ilaa iyo 17 dhibcood sidaas ayuu ku helay. marka Mohamed Salah kabtanimadii iyo maamulayaasha kabtanka saartay aad ayuu ugu faa'iideen. ninka sida la yaab kale u ciyaaray toddobaadkan maamulayaasha ka yaabsaday haysashadiisana ay sidii hore aysan ahayn maadaama aan looga baran inuu horyaalka uu si fiican u ciyaaro. inkastoo Eurogii uu si fiican u ciyaaray waa Paul Pogba ayaa sameeyay 4 caawin. waxa uuna helay 16 dhibcood. waxa uuna ka mid yahay ciyaaryahanada ugu dhibcaha badnaa qadka dhexe. ciyaaryahan Saciid Ben Rahma oo u ciyaara kooxda West Ham ayaa isna helay 12 dhibcood oo uu ku helay maadaama uu dhaliyay 1 gool sidoo kalena caawin uu sameeyay ilaa iyo dhibcii dheeraadka oo 2 ahna uu ku darsaday sidaasna uu ku keenay 12 dhibcood. saaxiibkiis Mikel Antonio ayaa weerarka hogaaminaya isbuuc ciyaareedkan. Mikel Antonio waxa uu dhaliyay 1 gool sidoo kale waxa uu sameeyay caawin sidaas oo caawintiisa xataa 2 ay ahayd. waxa uuna helay 13 dhibcood. Emmanuel Dennis oo u ciyaara kooxda Watford ayaa isna keenay 12 dhibcood dhinaca weerarka. Emmanuel Dennis waxa uu ciyaaray 65 daqiiqo waxa uu dhaliyay gool ka mid ah goolashii ee Watford kaga badisay Aston Villa. caawin ayuu sameeyay oo 3 dhibcood uu ka helay isagoo sidoo kale helay dhibcii dheeraadka ahaa waxa uu sidaas ku helay 12 dhibcood. guud ahaan dhibcihii ugu badnaa dhibcihii marka la isku dardaro ciyaaryahanadaas Dream Team-ka ah waxay keeneen 152 dhibcood taasoo ka dhigan in isbuuc ciyaareedkan aad iyo aad u fiicnaa oo maadaama labadii kabtanada ugu badnaa la saartay oo kala ah Bruno Fernandes iyo Mohamed Salah ay maamulayaasha aad iyo aad ugu faa'iideen oo mid kastaba dhibco ka badan 15 uu keenay. Bruno Fernandes oo 20 keenay iyo Salah oo 17 dhibcood keenay. marka jibaaradii ugu badnaan saan sheegnayba waxay ahaayeen triple captain-ka oo maamulayaal badan ayaa ku helay triple captain. laakiin maamulaha ugu dhibcaha badnaa oo keenay 150 dhibcood waxa uu ahaa nin aan ciyaarin wax jibaar ah. marka mar walba waxa fiican jibaarka aadan maxay ahayd isla markii aadan ku degdegin oo aad ka fikirtid qaab aad adigoo jibaar aan ciyaarin ama chip aan ciyaarin aad ku heli kartid dhibco fiican. haddana waxaan fiirinaynaa liiga FPL ee aan sameynay FPL Somali League iyo saaxiibada ku soo biiray iyo sida ay u kala koreeyaan iyo waxa ay kala keenaan. waxaan fiirinaynaa dhibcaha ciyaaryahanka ama maamulaha ugu dhibcaha badan ee isbuuc ciyaareedkii koowaad ee xilli ciyaareedka cusub. FPL Somali maamulaha ugu horeeya waxa uu keenay 126 dhibcood. 126 dhibcood haddii aan si gaar u fiirino maamulahaasi shaxdiisa iyo waxa uu sameeyay. maamulahani waxa uu ciyaaray triple captain ayuu ciyaaray oo kabtankiisa waxa uu ahaa Bruno Fernandes oo keenay 20 dhibcood. triple captain markii uu saartayna waxa uu ku helay 60 dhibcood. marka maamulahaasi waxa uu isla watay Salah sidoo kale wuu watay oo 17 dhibcood keenay. Son oo gool dhaliyayna toddobaadkan oo Man City gool ka dhaliyay isna wuu watay 10 dhibcood keenay. Solskjaer oo ciyaara kooxda West Ham oo 4-2 kaga badisay kooxda Newcastle wuu watay oo 8 dhibcood keenay. xagga weerarka markaan fiirino Ings ayaa u hogaaminaya oo keenay 7 dhibcood. Tony oo ciyaara kooxda Brentford 2 ayuu u keenay. Martialna 1 dhibic ayuu u keenay. dhanka daafaca dhibco fiican ayuu ka helay oo waxa uu ciyaaray kooxda Liverpool ninka uu ciyaaray Timiskas lagu magacaabo. Luke oo Timiskas waxa uu keenay 6 dhibcood. Luke Shawna 1 dhibic ayuu keenay. Pereira oo ciyaara kooxda oo aan ka soo hadalnay inuu yahay ciyaaryahanka ugu dhibcaha badnaana waxa uu ku helay 12 dhibcood. Sanchez oo goolhayaha u dheelayna waxa uu ku helay 2 dhibcood. marka si guud shaxdiisa waxay ahayd Sanchez 3 difaac oo kala ah Timiskas, Shaw, Pereira iyo 4 qadka dhexe oo kala ah Solskjaer, Son, Fernandes, Salah iyo Martial, Ings iyo Tony. markii aan fiirino bedelkiisana waxaa bedel ugu jiray Ayling oo dhaliyay gool ka mid ah goolashii calanka ay dhaliyeen kooxda Leeds kulankii Manchester United oo 6 dhibcood ku helay. iyo Busoma oo u ciyaara kooxda Brighton iyo Lascelles oo wax dhibca u keenay. marka maamulahaas ayaa ugu horeeya oo lagu magacaabo Cabdicasiis. maamulaha kale ku soo xigo oo ilaa 3 maamule oo isku xigta waaye mid kastana waxa uu keenay 115 dhibcood.
ilaa 112 ayuu keenay maamulaha shanaad oo asna lambarka shanaad ku jira. Waxaa ku xiga ilaa adiga waxaan dhihi karaa maamulayaal gaaraya ilaa iyo 15 ayaa ka sara martay dhibcaha 100ka ka sara martay. Marka waxaan dhihi karnaa maamulayaasha toddobaadkan waxay ahaayeen kuwa aad uga faa'iiday qaab ciyaareedka ciyaaryahanada badan ee la isdhihi karo waxa ay ahaayeen kuwii ugu fiicnaa. Haddaba isbuuc ciyaareedka horteena ah iyo kulamada haddii aan hore kasii sheego, kulanka ugu horeeya isbuuc ciyaareed soo socda oo la ciyaari doono Sabtida waxa uu noqon doonaa Liverpool oo martigelinaysa Burnley, Aston Villa oo martigelinaysa Newcastle, Crystal Palace oo martigelinaysa Brentford, Leeds oo martigelinaysa Everton, Man City oo martigelinaysa Norwich City iyo Brighton oo martigelinaysa Watford. Maalinta Axadda ah ee 22 Agostona waxaa ciyaari doona Southampton oo martigelinaysa Manchester United, Wolves oo arki doonta Tottenham, Arsenal iyo Chelsea oo iska hor imaan doona. Kulankaas waxaa noqon doona kulanka ugu weyn toddobaadka. Iyo sidoo kale maalinta Isniinta ah oo kooxda West Ham iyo Leicester ay is arki doonaan. Saaxiibayaal, isbuuc ciyaareedka horteena ah waxaan kasoo samayn doonaa barnaamij falanqeyn ah oo aan ka diyaarin doono ka hor maalinta maalinta kama dambaysta iyo la wareegista. Marka aad iyo aad noola socda, waxaan idin xasuusinayaa inaad kusoo biirtaan channelka oo aad subscribe saartaan, sidoo kale aad kusoo biirtaan bogagga aan ku leenahay Facebooka, Instagramka iyo Twitterka oo aan si joogto ah wararka aan kusoo daabacno. Sidoo kale waxaan idin sheegaynaa inaan liiga head to headka aan sameynay, sidoo kalena aan liiga hadda aan ka hadlaynay FPL-ka liiga aan sameynay asna FPL Soomaaliya kusoo biiri kartid. waxa oo dhan linkiyada hoos ay ku qoran yihiin kusoo biira. aad iyo mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.